maxamuud maxamed cabdi waa wiil yar oo ka xanuunsanaya dhanka sanbabada waxaana waalidkiisa ay sheegeen xanuunkan inuu ku dhashay 3 bilood ayuu jiraa maalinkii uu dhashay ilaa hadda waxa uu dareemayaa xanuun mana helo firaaqo uu wax yar aankee caafimaad ku dareemo dhaqaatiirta ku sugan magaalada Garowe oo la geeyay waxa ay sheegeen in sababada uu xoog kaga rogan yahay maxamuud yare xaaladiisa caafimaadna aan waxba dalka looga qaban karin qoyska maxamuud ma awoodaan siday ii xaqiijiyeen ama aniguba aan ka dareemay xaaladooda nololeed dhaqaale ay wiilkooda ugu qaadaan caafimaad dibadda ah samsam cabdullaahi maxamed jaamac waa hooyada dhashay wiilkan yar cabdullaahi maxamed jaamacna waa aabaha dhalay samsam waxay ummadda islaamka ka codsanayaan in laga caawiyo caafimaadka wiilkooda yar ilmaha yar wuxuu jiraa 3 bilood 3 bilood uu jirayna saas waa hadeer waxa moodaa inuu hooga ka soo reenayo waxa lagu sheegay xuub ku dhigsan bogiisa hoose ilmaha yar waxa loo baahan yahay in wax qabad fiican loo qabto ilaahay wax qabtee wiilka yarka ah oo xanuunsanayo aad aragtaan muslimiinta waxaan u sheegayaa 3 bilood buu jiray 3 bilood waa xanuunsanayay dhaqaatiir badan baa la mariyay waxa weeye waad aragtaan naqaska si u jiidayo awowgiisaan ahay gabadhayda dhashay muslimiinta waxaan ka codsanayaa in caafimaadka Ilaahay baa bixiya in la caawiyo oo la soo caawiyo sanbabada waad aragtaan ba hadii Ilaahay ku reelay xuub baa ku rogan ilmaha yarka ah oo sabiga ah muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay caawiyaan oo waxay u qaban karaan ay u qabtaan sidaas baan muslimiinta farayaa maxamuud waxa laga yaabaa inuu helo caafimaad hadii alla qadaro laakiin taasi waxay u baahan tahay dadaal iyo dhaqaale walaal alla dartii u caawi maxamuud maxamed cabdi oo magaalada Garowe ku xanuunsanaya inta waxay nacaawinaya oo waxaan wiilka wax ka geysanaya dar Ilaahay wax uga geysanaya waxaan rabnaa lambarada aan sheegayo oo ah waxa weeye 01 82 lambarka ah waxa weeye 725 shan weeye 8 lambarada maxamuud soo fiirsanay TV-ga Somali News magaalada Garowe